wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta dalka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada oo uu ka mid yahay Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaa maanta ka ambabaxay dalka iyagoo u sii jeeda dhinaca wadankaasi Ingriiska halkaasi oo ay kaga qayb gali doonaan xuska munaasabadda 18 May oo ay la qaybsanayaan jaaliyadaha reer Somaliland ee ku dhaqan wadanka Ingriiska. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland oo warbaahinta la hadlay ka hor intii aanu ka dhoofin dhabaha diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in abaabul xooggan uu ka socdo arrigaasi Ingriiska iyo guud ahaanba jaaliyadaha dibadda oo aad u xoog badan isla markaasina ka sii laab badan dadaaladii ay sanadihii hore u gali jireen xuska munaasabadda 18 May isla markaasina socdaalkoodani uu qayb ka yahay sidii ay ula qaybsan lahaayeen mujtamacaasi munaasabadda 18 May. waxaan u anbabaxaynaa arriga Ingriiska sida aad sheegtay magaalada London waxaanu ka qayb galaynaa xuska munaasabadda 18 May maalinta qarankeena maalinta xornimada Somaliland maalinta dib u curashada Somaliland maalintaas oo aad ogtahay meel kasta oo ay reer Somaliland ku sugan yihiin in si weyn looga xusayo sanadkan waliba aad baynu u xusaynaa waxaan munaasabadaasi meel fara badan oo waqooyiga Mareykanka wadamada Carabta ama Khaliijka wadamada dariska oo Djibouti iyo Kenya iyo Ethiopia iyo wadamada kale ee Yurubta galbeed aad iyo aad buu uga socdaa diyaar garow laxad leh oo loogu diyaar garoobayo xuska maalintaasi waana ogtahay Somaliland gudahana maalinta xuska 18 May wuxuu uga socdaa si qeyr caadi ah aad iyo aad bay shacbigu isu abaabulayaan waxay isu abaabulayaan si ka laxad badan sidii hore waliba doorkan waxaad moodaa mararkii hore magaalo madaxyada iyo xuska intiisa faraha badan lagu qaban jiray sanadkan degmo ayaa loogu qaban doonaa oo xusku wuxuu noqon doonaa xus aad u weyn oo si weyn loo muujiyo dareenka iyo weynaanta ay nagu leedahay 18 May. Geesta kale mar wax laga weydiiyay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta dalka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse wax garadka oday dhaqameedka iyo ganacsatada ka socota wadankaasi Soomaaliya ee haatan dalka ku sugan iyo ujeedooyinka socdaalkooda waxa uu ku jawaabay hogaamiyaashaas waa hogaamiyaal dhaqan inagu ummad islaam ah baynu nahay dhaqanna waynu leenahay ka Soomaaliga iyo ka Etoobiyaanka iyo ka Carabta ah iyo cid kasta oo ay danteenu gasho ama aan gelin darisnimo iyo muslimnimo aynu ku kulanno waxaynu u xushmaynaynaa sida bini aadamnimadu ina farayso sida dhaqankeena wanaagsan ina farayo asluub baanay leedahay markuu qofku gurigaaga joogo lagula hadlo qofku markuu gurigaaga joogo asluub lagula dhaqmo asluub lagu xushmeeyo asluub lagu martigeliyo adigoo dantaada wata adigoo qadiyadaada difaacanaya adigoo qadiyadaada fahamsiinaya waxaan inaga muhiimadeenu tahay shacab iyo dawlad iyo golayaal iyo madax dhaqameedba in ay nimankani waa odayaashii wadankii Soomaaliya ee aynu kala tagnay in ay fahmaan qadiyadeena danba inaga inoogu jirta inay fahmaan halka uu shacabkeena iyo dawladeena iyo dadkeenu marayo danba inoogu jirta laakiin ereyada qaar oo anigu aan kaba xishoonay inaan afkayga ka idhaahdo qof martiya in lagu yiraahdaa ma wanaagsana asluub fiican ma aha asluubtu waxa weeye marka odaynimo iyo dhaqan iyo diin iyo si kasta wax waliba waxay ku farayaan in aad qofka martida ah ula dhaqanto sidii qof adigu aad mas'uul ka tahay. socdaalkan wasiirka ayaa qayb ka ah socdaalo ay mas'uuliyiinta xukuumadda Somaliland gaar ahaan golayaasha wasiirada iyo baarlamaanku ay ugu ambabaxayeen wadamada dibadda iyaga oo jaaliyadaha dibadda kala qayb qaadanaya xuska munaasabadda 18 May.